dalka inta badan de kulley waa laga wada dharisay xaalad dagaal buu iminka uu ku jiraa dagaalkanood moodid in dagaal quwado badan ay iskugu yimaadeen ay heshiis ku yihiin inay ku burburiyaan dalkan Ethiopia ma aha sida loo sawirayo deegaanka Tigreega ama jabhadii TPLF iyo isbahaysigeeda ilaa iminka wadanka sidan u gashay oo qabsanayso oo iyadu kaligeeda ah mid la oran karayo maahina waa mid dawlado badan oo dana gaar ah kalihi runtii ay ka dambeeyaan iminka sadde maanta marka laga eego kale waxaad moodaa inay tii ay ku fashilmeen kuwii dabada ka riixayay qoladii soo duushay kooxdeerada dhiigi cabkahayda TPLF tiina laga saaray intii badnayd meelihii ay soo waxayna dib loo wada caabiyo dibna looga riixay sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu isniintii ku baaqayeen in isaguna uu safka hore uu ka soo gari doono maxay leedahay qadiyad masiiriyo ummadan oo dhan ummadda Ethiopia oo dhan ba wada taala in ay marna ayna noqonin inay dib u soo noqoto taariikhdii madoobeyd iyo maxaan ku raadaya ku takrifalkii awoodeed kooxda yar ay wadanka ay ku haysatay marka waa dagaal loo wada dhan yahay ma dagaal oran karayo deegaanka Canfarta deegaanka Amxaarada deegaanka Koonfurta ama deegaanka Soomaaliya wax la oran karayo ma wax wadanka oo dhan taas ana keenta in wadanka oo dhan ba uu difaaci uu qayb weyn ka wada qaato marka waxaan aaminsanahay inay taasi iska dhamaan doonto taariikhdu dib iskuma qorto horanba taariikhdu u socotaa in la soo afjari doono waqti aan dheerayn dagaaladaas iyo kooxdaasi ku aburkutayn jirtay wadanka sidii loo soo afjariyaan waxaan u maleynayaa in ayna waqti badan sii socon doonin xisbigii EPRF ta loo oran jiray garwadeenka ay ka ahaayeen qolada TPLF wixii ay ka sameeyeen gobolada Ethiopia oo dhan si guud ma gaarin wixii gobolka Soomaalida runtii ka dhacay ee lagu sameeyay tusaalena waxa kuugu filan jeel ogaadeen oo runtii la oran karayo marka laga sheekaynayo la oranayso waxaan ma filim ba mise ma dhici kartaba kulli qolooyinka dibadda u cararay markii ama nooga sheekaynaya ama qof xaalada soo maray uu nooga sheekaynaya waxaad qoranaysaa uu ka badbadinaya ama uu ku dardaraya baad soo oranaysaa marka horta mid waan aaminsanahay taariikhdu dib iskuma qorto waxaan aaminsanahay ninka iminka TPLF baa soo socota ee durbaanka u tumaya maxaan ku raadayay qorshahaasi leh way soo noqonayaan isdiyaarinaya waxaan isleeyahay kaasi waa mid hawaawinaya hawaawina waxa loogu dalo qof korta inuu seexdo marka bacdi inuu khooriyo waa ninka marka waa nin socdo khoorinaya yaan isleeyahay taariikhda dib iskuma soo qorayso maxaa yeelay 19 ma joogno qowmiyadaha Ethiopia way ka dhareegsan yihiin wixii soo maray gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaalida iyo shacabkiisu way ka dhareegsan yihiin wixii soo gaaray 27 sanadood yaani wax loo hambeeyay ma jirto wax walba laga dilay dhaqankii baa laga dilay sharaftii baa laga dilay diintii baa laga dilay dadkii waxa laga dhigay wax la dilo wax la barakiciyo wax carara nooc walba oo runtii dulinimo iyo xaqiraada oo ummad lagu sameeynin iyo runtii lagu sameeyay marka shacabkaas oo ka dhareegsan wixii soo maray oo imika nafis helay naacaw helay dareen iyo dadnimadiisa imika ay soo noolaanayaan diintiisa ay soo noolaanayso ma aaminsan inay aqbalayaan maxaan ku raadayay wixii shalay toole dib leedin ku soo celinaya waxay aqbali doonaan maaha dadka iyaguna sidaas ku sii haminayana waxaan leeyahay war dadkeena dhinac ka raaca taariikhdaas way isdhaaftay wixina soo marayna ninna kama yeelayno dhimashan ka naqana waxa la wixii TPLF iyo waxay la halbaantay isku day inay dib u soo celiyaan taariikhdaasi lagama yeelayo shacabka Soomaaliyeed horena uu tashaday imikana uu tashanaya marka taariikhdaas waxaan leeyahay waa taariikh madow oo la soo maray oo buugaagta in loogu qoray dadka in looga sheekeeyo mudan reer galbeedka iyo qolooyinka la socda waxay eeganayaan masaalixdooda danahooga yeedintii ay barteen iyo inay maxaan ku raadayay dawladaha iyagu ay u yeedhiyaan oo tii sida iyagu ay doonayaan yeeli weydana inay markaa ay ku kiciyaan qiiq iyo buufis kale oo boodidba dimuqraadiyadda iyagu inay miqyaas ay u leedahay sida u rabaan haddii aad ka dheeraatid inay markaa tahay baqas in lagu qaato oo laga gooyo imikana wax dagaalka ku socda Ethiopia waa dagaal kaasuu ka mid yahay gaar ahaan xagga propagandada iyo warbaahinta oo dawaba heerkii ay gaarayeen inay si arintu tiraadaba adisaba la kulaalayaa la dul jooga runtii warbaahinada hatta kuwa carabta ahaa Al Jazeera iyo BBC carabiga iyo waxa soo dhabaxay ku dhanayaan waaba la soo galay dusha bagaaladii
laga haystaa taas laakiin waxaan aaminsanahay inay fashilantay